السلام عليكم مريكان وليجيس كما استاجين فرقشي إن أضب هريو وليجيس كما استاجين ما أنت حالك مريكان كبوحو مريا هالعنت يقرحين تدقارك كدحشدان تايوان يشينها لكن سيدي وانوغان دونا انت أموقارك كوكوذي جرنو دابده شي تشيمبين مدحوينها شينها فرقشيغان وحو ugu jawaabi sukulun iyadan waan ogaan doonaa inta aan muuqaalkan ku guda jirno inakeena dhinaca kale bariga dhexe mandiqada falanfalanayso imaaraad oo isagana barigan ka bilaabay wax lagu qoslo safiirka imaaraadka Sayf az-Zaabi oo dib loogu celiyay Iiraan Umaro maxaa ka qaldan safiir la celiyay wax lagu qosla ah hadegdegin waan ogaan doonaa iyadan muuqaalkan waa mid si guud u taabanayo siyaasadda caalamka min bariga adduunka ilaa galbeedka adduunka waxaan idin soo gudbinayaa anigoo ah Umar Maxamed ku soo dhawaada muuqaal xamaasadaysan oo xasaasi ah aan ku bilowno daandaansiga Mareykanka ee uu daandaansanay Shiinaha gudoomiyaha gobolka Indiana ayaa wuxuu booqday ama uu tagay caasimadda Taiwan Taipei Indiana baa gobol ka tirsan gobolada dhac galbeedka dhexe ee waqooyiga Ameerika gudoomiyaha gobolkan wuxuu booqday Taiwan oo dagaal xooggan kala dhexeeyay Shiinaha booqashada gudoomiyahan waxa ka horeysay booqashadii Nancy Pelosi waxay haysaa jagada saddexaad ee ugu muhiimsan ugu weyn guud ahaan jagooyinka Mareykanka marka laga soo tago jagada madaxweynaha iyo jagada madaxweyne ku xigeenka Mareykanka kadib booqashadii Nancy Pelosi waxa xigay majmuuca mise koox qayb ka ah Congress-ka oo iyagana booqday ama tagay Taiwan ilaa markan saddexaad oo maalmo ka hor gudoomiyahan uu tagay caasimadda Taiwan Taipei xukuumadda Mareykan waxay taagan tahay iyadoo la hadlaysa Shiinaha maxaad sameyn doontaan maada tafcaluuna ya asxaab al-uyun ad-dayiqa maxaad sameyn doontaan kuban indhaha yareer leh waxay adeegsatay kelmadda ah kuban indhaha yareerka ah leh iyadoo u qasdaysa Shiinaha maadaama ay yaryar yihiin hadalkeeda waxay ku si dhamaystirtay hana ii sheegin inaad sameynaysan dholatus ciidan Shiinaha ayaa arintan si kulul ugu falceliyay ama ugu soo jawaabay falcelintana waxay ka imaaday carabka madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping madaxweynaha Shiinaha wuxuu yiri waxaan aad iyo aad uga walwalsanahay xiisadan sii kordhaysa ee Washington Mareykan xiisadaas oo ku aadan Taiwan Xi Jinping wuxuu yiri xiisadan waxa laga yaabaa in ay ka dhalato muwaajaha ciidan ama weerar ciidan oo aan ku talagal ahayn hadalkan oo ka dhigan xiisadan waxa laga yaabaa in ay ka dhalato inaan isqaban inaga iyo Mareykanka in loolankeena bilowdo inaan tooshka isku ifina indhahana isu furano maalmaha soo socda waxa macquul ah oo laga yaabaa in uu dagaal ka qarxo Shiinaha iyo Mareykanka waa saadaalin waana sida muuqata waxay tahay in dagaal xooggan uu ka qarxo Shiinaha iyo Mareykanka maadaama ay Mareykanka soo faragashteen arinta ka dhaxaysa Taiwan iyo Shiinaha Mareykan boqorada faragashiga tan iyo bilowgeedii marnaba kama istaagin faragashi maxay ka rabtaa China iyo Taiwan waa su'aal iyadana meesha taalo marka aan halkan joogno waxaan isweydiinaynaa Shiinuhu muxuu ka rabaa Taiwan maxaase ka dhaxeeya Shiinaha wuxuu taagan yahay Taiwan waa Shiine Taiwan waxay ka tirsan tahay Shiinaha waa sida uu i'tiqaadsan ama uu taagan yahay Shiineeska marka Shiineeska muxuu ka rabaa Taiwan Shiineeska maxaa ku kalifay in uu dib ugu soo rogaal celiyo Taiwan haddaba sababta koowaad waxay tahay Shiinaha wuxuu Taiwan ka raadiyay ama Taiwan uu ka rabo waa waxa lagu magacaabo ash-sharaa'ix al-elektarooniya ism Taiwan waa isha ugu muhiimsan caalamka marka loo fiiriyo ash-sharaa'ix al-elektarooniya ism Taiwan waxay maamushaa 90% oo ismka adduunka ah waxay maamushaa 90% ismka adduunka ism ama ash-sharaa'ix al-elektarooniya waa waxa ugu muhiimsan ee fududeyn kara ama suuragelin kara samaynta qalab elektaroonik ah samaynta qalab korontada ku shaqeeya waxa ugu muhiimsan fududeyn kara waa ash-sharaa'ix al-elektarooniya ama af English marka lagu dhaho ism qalabkaas la sameeynaayo ha noqdo telefoonada caadiga ah oo aad hadda muuqaalkan ka daawanaysid ilaa samaynta baabuurada xitaa samaynta diyaaradaha intaas waxa fududeyn ama suuragelin kara waa ash-sharaa'ix al-elektarooniya marka af Ingiriis lagu dhaano waa ism Shiinaha wuxuu rabaa in uu Taiwan uga faa'iideysto ismkan haddii Shiinaha uu soo celiyo maamulka Taiwan celintaas waxay kaarita ama musiibo weyn ku noqonaysaa galbeedka uuna ugu horeeyay Ruushka iyo Mareykan ilaa dawladaha kale ee galbeedka waxay ku noqonaysaa kaarita iyo musiibo daawade inakeen bariga dhexe ash-sharqul awsat mandiqada falanfalanayso maxaa iyadana ka socdo inta ay wax marayaan أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات عودة سفيرها إلى إيران سيف الزعابي لممارسة مهامه الدبلوماسية wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga adduunka Imaaraadka maalmo ka hor waxay iclaamisay in safiirkeeda Sayf az-Zaabi ay dib ugu celisay Iiraan si maalmaha soo socda uu u guto waajibaadkiisa diblomaasiyadeed kadib markii ay ka soo wareegatay 6 sano xilligii Imaaraadka safiirkan ay ka soo celiyeen Iiraan arintan iyadana waa wax lagu qoslo waxa laga yaabaa inaad is
isleedahay safiir la celiima wax lagu qosla Cumarow sidee wax ka yihiin maxaa ka qaldan hadegdegin wax u kaadi wax waliba wada la socon doonta u kaadi waxa laga yaabaa inaad adiga ku qososhid waxyaaba imaaraadka ku wadan bariga dhexe imaaraadka waxay sheegeen in Yemen ay u joogan in ay la dagaalamaan Xuuthiyiinta ka jira Yemen in ay la dagaalamaan in ay u joogan okay waan isla garanay Xuuthiyiinta uu sheegtay in uu la dagaalamayo waxay raacsan yihiin Iiraan waxaan u maleynayay inaad dad ifahantay macquul ma tahay in imaaraadka uu la saaxiibo safiir u diray Iiraan uuna la dagaalamo saaxiibada Iiraan oo ah Xuuthiyiinta arintan waa wax lagu qoslo oo aan aqli fiyo aqbalaynin haddii aan si kale ku fahansiiyo adigan hadda idaabanayo macquul ma tahay aqli gal ma tahay haddii aan saaxiibka dilo adigana kula saaxiibo ma soconaysa aqli gal ma tahay jawaabtu waa maya waxaan meeshaas ka fahmi karnaa in imaaraadka Yemen uunan u joogin in uu la dagaalamo Xuuthiyiinta wuxuu u joogaa dana gaar ah oo uu isaga leeyahay laga yaabay inay tahay burburinta iyo baabi'inta Yemen imaaraadka cidba oo naxariisad waan aragnay xaaladeeda qodobkan aan meesha uga baxo saaxiibayaal ina keena Aljazaa'ir Algeria ina keena madaxtooyada Faransiiska waxay calaamisay in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu tagi rabo Algeria laga bilaabo 25 ilaa 27 bishan August oo aan hadda ku jirno 25 bish waxay ku aadan tahay hadeertan oo ah 5 saac iyo bar oo aan mawduucan diyaarinayo waana maalin Khamiis ah 27 kana waxay ku soo aadaysaa Sabtiga inuu ku soo foodan insha Allah waxaan ku dadaalayaa in muuqaalkan uu idin soo gaaro berita Jimcaha ah ama ilaa habeenka Sabtiga inuu ku soo foodan insha Allah waayo muuqaal sameynta ma aan wax iska sahlan wax la iska sameyn kara ma ahan waxa la raba in dadka loo keeno wax la hubo macluumaad la hubo xaqiiqo ah wathaa'iqina ah marka Macron wuxuu ka soo raadinayaa Algeria saxiifadan ama wargeyskan waxa ku xusan ihyaa al-cilaaqaad in dib loo nooleeyo cilaaqaadka ka dhaxeeya labadan dal Algeria iyo Faransiiska kadib dhowr bil oo labadan dal uu ka dhaxeeyay tabatur iyo cadaadis siyaasadeed sidoo kale 25 bishii Abriil sanadkan 2022 oo aan hadda ku jirno Abdelmajid Tebboune oo ah madaxweynaha Algeria wuxuu tahniyad ama hambalyo u diray Emmanuel Macron kadib markii Macron loo doortay mar labaad madaxtinimada dalka Faransiiska wuxuuna ka codsaday Abdelmajid Tebboune wuxuu Macron ka codsaday inuu Algeria soo booqdo kulay waan arki doonaa wixii ka dhashay ama ka dhac booqashadan waa wax la yaabo ama aan habooneen dadkii ku gumeystay oo awooyaashada baabi'iyay inaad booqasho ka codsatid Faransiiska wuxuu laayay oo dhulka la simay milyan iyo barda Jazaa'iriyiin ah waana sababta Algeria loogu magacaabo balad al-milyan wa nisfa shahiid baladka milyan iyo barka shahiid milyan iyo 500,000 dad ah ayuu laayay Faransiiska dhulkana la simay insha Allah waxaan rajeynayaa in aan muuqaal dhameystiran ka sameeyo dhaqdhaqaaqi gobonamadoonka Algeria dhaqdhaqaaqi xoriyadoonka Algeria oo ay kula dagaalameen cadawga dhulkooda ku soo duulay Faransiiska oo laayay in badan oo kamid ah abooyaashii Jazaa'iriyiinta wajiga madow ee Faransiiska waxaan ka sameeyay muuqaal waxaana idin soo dhigayaa description iyo commentiga koobaad qofkii u baahan inuu ogaado wajiga madow iyo xaqiiqda Faransiiska meesha ka daabado in badan oo xaqaa'iq ah oo aan soo koobay ayaa muuqaalkaas isugu jira qofkii u baahan inuu daabado meesha ka sii daabado description-ka iyo commentiga koobaad ayaan idin soo dhigayaa muuqaalkan waa iga intaan muuqaalkan waxa idin soo diyaariyay juhd iyo dadaal idin soo galiyay anigoo Cumar Maxamed waxaana idin soo marsiyay kanaalka Garwaaqsi isiyaa qabiyo badaliye مركلة وولالكن عمر محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.